محاضرة وسعودية مدة 9 عشاء وعوان كذو ها بالشدة وناكسنة إسلام كواي كسو قيب قلن علماء الدين كالسومالي لان أيها يوجد ذو هاي تدي اللي يسوقوا براروتين لها نفهن أن اللوغو تربيين لها إن لقاضوا وضد رسولك كيف محاضرة ذني مدة 8 عشاء سعودية أيها وحاكاها لي شيخ محمد آدن محمد أو شيخي مهمة عيلة هاي كتربيين تنفت إن لوغو تربية ذيو لنقاضوا وضد رسولك عليه الصلاة والسلام لنا استعلاء ذا لغانا دير هذا وحكست أو حمانته إنه هرسيدي كرا sidii aynu u furin lahayn sidii aynu ugu dhaqmi lahayn sidii u gudbin lahayn habeenkii ka wada hadlaynay marka la soo ururiyo wacyigelinteena runtii aynu bulshadeena sanadkan ku jihaynay qodobo ka mid ah waxaynu uga jeednay in aynu nafaheena ku rabayno waa in la helo nidaam qofka anshixiisa iyo asluubtiisa iyo cibaadadiisa iyo aqeedadiisa dhisa kaasoo kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam laga qaadanayo loogu talagalay qofka muslimkii qof nool oo jira inuu noqdo qof jihaysan oo meel ku jihaysan inuu noqdo qof ilaalinaya waxyaabaha dantiisu ku jirta adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba inuu noqdo sidoo kale sheekh maxamed cali biixi ayaa isna ka hadlay muhiimadda ay leedahay xumaanta oo laga dheeraado iyo wanaagga oo la isfaro abwaan saleebaan carab aw siciid oo isna madasha ku soo bandhigay gabay suugaan ah oo ka hadlaya qiimaha ay diintu leedahay ayaa ka mid ahaa dadkii madasha ka hadlay gabagabadiina sheekh cabdiraxmaan aw axmed cabdi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay 10kii qodob ee laga soo saaray 10kii cisho ee ay muxaadaradani socotay isagoo oo aad ugu dheeraaday qiimaha ay leedahay amniga nabadgelyada iyo sidoo kale sidii la iskaga kaashan lahaa abaaraha qodobka koowaad in la fahmo lana barto astaamaha alle iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaameen bulshada muslimka ah astaamahaas oo ku cad kitaabka alle القرآن الكريم كاه يسنها النبي عليه الصلاة والسلام قضب كلبات إن لراعه لقونا دقمه طريقة توصن الله سبحانه وتعالى إنه تشديي رسول كيسنا عليه الصلاة والسلام إنه جوهجي قضب كصدحات إن لقفوا قادو ليسكنوا وانيو ضمان وحيابها حنحن الله إنه جربي qodobka afraad in la xoojiyo lagana qayb qaato fidinta diinta iyo dacwadda islaamka qof kastaana xilis ka saaro waajibka diinta ka saaran qodobka shanaad in la qabanqaabiyo lana qorsheeyo sidii culimada dalka ay ugu bixi lahaayeen deegaamada miyiga qodobka lixaad in lala shaqeeyo oo la taageero hay-adda khayrka badan ee wanaag farista iyo xumaan reebista qodobka toddobaad in la xoojiyo iskaashiga ummadda iyo gargaarka dadka baahan miyi iyo magaalaba gaar ahaan in loo gurmado dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen xilligan hadda aynu marayno kuwaas oo yacni baaqoodii uu socdo in aad looga qayb qaato taasoo aata ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naxariisanayo aad looga qayb qaato taasoo aata ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naxariisanayo qodobka sadeedaad in lagu baraarujiyo hoggaan dhaqameedka ummadda mas'uuliyadda ay hayaan iyo sida ay ugu adeegi lahaayeen iskarabtaagga diinta islaamka iyo dacwadda islaamka si ay iyaguna u badbaadaan ummaddana u badbaadiyaan qodobka sagaalaad in la iska kaashado xoojinta nabadgelyada aynu ku fadhino ee alla inoogu deeqay lagana dhowro wax kasta oo duminaya qodobka tobnaad ka hortagga dhammaan caqiidooyinka iyo afkaarta iyo mabaadi'da qaldan ee dalkeena soo gelaya